Halkan waxaan ku bixinayaa sirta khaaska ah ee ardayda iyo gaarka ah. Waxaan kula wadaagayaa laba shay oo muhiim ah. Macdan markaad doonaysid waxaa jira macdanta meelo positions oo laga raadiyo. Waxaan wax walba kaaga dhigayaa luqadaada hooyo. Waxaan hadda bilaabayaa xogtii. Marka aad doonaysid macdan gaar ahaan aad doonaysid dahab iyo macdanaha kale ee la midka ah ee dhagxaanta ah. Lambar kow qodobka koowaad ee aan ku siinayaa waxa weeye marka aad tagto horta khasab waxa kugu ah inaad macdan haddaad doonaysid aad waqtigaaga iyo naftaada aad u hurto duurka inaadan caajisin baqan gaabsan laalaaban ayaa khasab kugu ah. Si kastoo ay ahaataba duurka mar walba macdan haddaad xataa gurigaaga inaad kaga shaqaysatid rabtid waa inaad duurka ka keensataa macdantii. Sirtaas halkaa markaan ka imaado marka macdan iyo jawi degan ciyaar ku helaya isma gelayaan. Taas haddii kugu jirtay mar walba meelaha laga doonayo macdanta waxa loo yaqaanaa magaca hydrothermal furnace. Hydrothermal furnace macnaheedu waxa weeye waa dildilaacyada dhagaxa dildilaaca leh ee macnawiisu uu yahay astaamaha soo muuqda leh. Dhagaxaasi tilmaan ayuu leeyahay gaar ah. Kow buurta markaad aragtid waxaad arkaysaa meel korka sare ka dilaacsan dhagaxu ka dilaacsan yahay. Meesha kale waxa weeye waxaad arkaysaa dhagax ka dilaacsan tartarka hoose oo u dilaacsan dhagaxu midna wuxuu u dilaacsan yahay gudub wuxuu u dilaacsan yahay lasinaadka dhulka raacaya midna wuxuu u dilaacsan yahay jeexdin hoos u degaysa oo dhuuxa aadaysa hoose. Dhagaxna wuxuu u jeexan yahay si babac ah. Jeexnin kastaba dhagaxu ha ahaadee dhagaxa jeexan waa meesha main point-ga. Jeexninkaas haddaad dhex gashid oo sii jabisid gudaha shishe u dhacdid waxaa ugu tegaysaa meelashii maagmuhu ka dhacay ama heer kulku ka abuurmay ee biyaha kulul ay galeen markii hore dabkuna ka curtay. Halkaasi waa meesha ay macdanaha ka abuurmeen quartz-ka iyo dahabka iyo macdana badan oo kale. Marka meeshaas waxaad ugu tegi kartaa dhagax qaali ah iyo waxaad ugu tegi kartaa haddii Ilaahay idmayo iyo dahab. Maadada kale oo aad ku heli kartaa dahabka ama macdanaha qaaliga ah dhagax haddaad aragtid laba dhagax oo dhexda isaga kalana ama dariiq yar oo kalar kale ay dhexda ka marto meesha dariiqtu ka marto waad jabinaysaa. Waxa macquula in gudihiisa macdan ku jirto. Waa astaamaha inta badan waa la raacada dildilaaca halka kaaga muuqda meesha uu asaga iyo qarka dhinacan iska galaan iyo meesha ay dhinacan qarka iyo asagu iska galaan ayaa la saarayaa. Fadka dhexe oo dhan baa lala baxayaa. Fadka lala baxay waxaa la rabaa labadiisa dhex wixii ku jiray in la soo saaro macdana. Lambarka ku xiga fadka laftirkiisa waa la qaadayaa hadhowdi shiidis baa loo dirayaa ama waa la tumayaa. Macdanaha ku jira laftirkeeda waa laga shaqshaqayaa waa laga soo saarayaa. Falsafada marka macdanta looga shaqeynayo waa taas. Mar walbana waxa weeye meel inaad sir heshid macdantu. Haddaadan sir helin waxba ma qaban kartid. Waxa lagu qabtaa waa sir iyo qorshe iyo dadaal iyo target aad leedahay meesha aad main point-ga aad tooganaysid waa inaad taqaanaa. Marka qodobkaas asaguna waa qodob kale oo xubinka ah shaqadeena. Halkaa deertaan astaanta waxa kaaga muuqda meesha sare waa dhulkii labada falaarood inta u dhaxaysa waa hawo dhexe
fallaarahaasi korka yimi hoos ku dega meelaha madow ay ku degayaan waa meelihii macdanta ku jirtay macdanta waxaa ka taargadgaraynaysaa meeshaas oo kale haddii diilimaha madow aad tagtid waxaad heli kartaa khayraadkii halkaas sare waa calaamado iyo fallaaro dhulkii oo kaas halkaasuu ka abuuran yahay dhulku markaa hoostiisa hoose wax yar baa la qoday macdantii marka heer fogba ma sii jirto midda koowaad waxay joogtaa heer dhow midda labaadna waxay jirtaa heer fog markaan hadda kuu sheegay quartz veins ama gold veins waa halkaan oo kale halkaan jeexniinkaas waa meesha laga taargadgarayn karo wixii aad doonaysay halkaas haddii qofku uu sii jeexo wuxuu ugu tegayaa dhagxaan qaali oo qurqurux badan sidoo kale dahab iyo waxyaalo kale dhagaxaadanta qaaliga inta badan halkaas oo kale laga helo waxaa ka mid ah tourmaline iyo dahab iyo quartz waa saddexda maado oo aadka looga heli karo hadda halkaas tourmalintuna waa qaali $100,000 bay gaadhaa kiiladeedu dahabkana 100,000 bay gaadhaa ilaa 130,000 ilaa 140,000 bay kiiladiisu gaadhaa mararka qaarkood halkaas oo kale waxaa laga helaa kiila dahaba ama isku xiran iyo wax ka weyn sirta marka haddaadan fahmin maadan fahmin waa inaad fahantaa qaacidada dhabta ah halkan videogan innaga ayaa khaas u leh tiimkeena video kale oo aynu gaar u leenahay baa jiri doona soo dhawaada asxaabtayda sharaf